بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمان ومدة إذا ميل كستا جوبتان. I hope دمانتين على دنتين عافمات قبتان محيسنتين ميل كستا حلي كستا يساعد كستا يدينتان الله سبحانه وتعالى يدوكو حفتيو كسو دواد الشانل كيغا وانو نادية. الحمد لله إنه فيديو كلا يسوكو سون نقونا إنه وضع عافمات قبنا إن شاء الله. دمانتي ولا ليال سون دموادا welcome back إن شاء الله بإذن الله كريم فيديو كان wuxuu ku saabsan yahay arrin aad iyo aad u murugo leh iga oohisiisay adduunweynaha ka oohisiisay qaracan ah ee ku jirto mental illness society-geena maasha Allah family sharaf badan oo diin leh hooyo xanuunsanaysay qurbaha daway aynu ula dhiil garayno mental illness iyo dabawarka iimaanku uu leeyahay iyo diintu ay leedahay badan iyo family-ga struggle-ka aynu inaga dhan galno haddaynu nahay Soomaali dad qurbaha jooga iyo actually meel kasta aynu joogna laakiin especially qurbaha so insha Allah bismillahi kariin haddaa tahay qof qalbi jilicsan sidayda oo kale aad ayaan u yaqsantahay markaan dhageysanay haddaa fadlan tahay qof qalbi jilicsan aan xamili karin haddaa tahay qof xanuunsanayo oo struggle ku jira hadday tahay depression any kind of xanuuna ood og tahay please ha dhageysan ama cid aday kula joogta dhageysto fadlan ha dhageysan insha Allah bismillahi kariin arrintan waa arrin qisadani qiso naxdin leh uur ku taalo leh weeyaan laakiin ilaahay ayaa qadaray wax kastana kulli shay qadar Allah marka insha Allah bismillahi digital sisters podcast oo la yiraahdo gabdho Soomaali oo reer Toronto ah ilayeen gabdho yar oo wadaado ilaahay sharfay oo soo jeediye soo bandhiga storieska dumarka muslimiinta ah sidoo waxa ka hadlaysa in la yiraahdo amal waa in reer Toronto ah amal qisada waxay ku bilowday waxay tir anigu 14 sanadood jira ayaan waxaan ku dhashay oo ku koray wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi waxay tiri anigu 14 sano jira ayaan soo guurnay North America nimi New York New York markaan nimi kamaanu helno waxaan u gudubnay Toronto 14 sano jira waxay tiri Toronto markaan nimi cultural shock baan ugu dhacay inkastoo iyadu English taqaan luqadii ma naqaan marka aabihii wuxuu kaga yimi waxay kaga yimaadeen Imaaraadka hooyadii iyo caruurtii baa yimi iyada ugu weynaad curadu ahayd caruurtu intay tahay ma garanayo ma ay sheegin laakiin dhowr caruur weeyaan waxay tiri culture baa shaak baa nagu dhacay dad Imaaraadka kusoo koro nolol fiican kusoo koro shaqaale laha oo de Toronto saa loogu soo dhex tuuray oo completely different waxay tiri maadaama aniga reerka ugu weynaa luuqadina aqaana waxay noqotay inaan anigu hooyo la taliyaheeda noqdo inaan waraaqihii la buuxiyo inaan meel walba la maro inaan go-aamadii la gaadho waxay tiri waxaan noqday de family-ga hooyo la taliyaheedii waxay tiri marka muddo say saas ku ahaayeen gabadhii maasha Allah amal way weynaatay way guursatay kabacdi waxay tiri gabadh baan dhalay anigana guurkeygii waxay tiri ninkii waanu kala tagnay haddaan ninkii kala tagnay waxay tiri went through waxay iyadana xoogaa struggle yani qof guur ina yaro markaa guursado guurka xumaaday waxay tiri marka waxay tiri alxamdulillah aniga aan struggle-kaygii I was going through struggle-kii guurkii ka xumaaday iyo divorce-gii iyo anoo ina yaro ma yar haysta waxay tiri sidoo kale hooyona sidoo kale waxay iyaduna maraysa marxalado marka waxay tiri hooyo waxa jirta inay sometimes moodkeedu isbedeli jiray oo xanuunsan jirtay oo marka waxay tiri marba dhakhtar baan u geynaa waxa laga soo celiyaa wadaad baa loo geeyaa waxay tiri wadaadku quraan buu saara waxa leedahay ilaahay baa ku haya jin baa ku haya waxa kan waxay tii quraan baa la saara ma sha Allah ayaamay ladnaata hadana sidoo kale another wadaad kale waxay tii that cycle-kaas waxay socotay muddo 9 sanadood ayaa hooyo caafimaadkeedu isbedbedelayay marka maamada depression baa hayay laakiin diagnosis laguma sameyn maadaama hooyo kaligeed oo single mother ama ka caruur yar haysata waxay tiri markaan hooyo dhakhtarka inuu tagno u sheego waxaad qabtid waxay leedahay hadda aniga u sheego dhakhtarka caruurtayda layga qaadanaya waa layga kiin qaadanaya waxa la moodayna waalana waxyaabaha soo miidhan adaynu inaga dhan markay noqoto depression fikradda inaga dhaadhacsan waxay tiri 9 years bay hooyo upside down ahayd maalintii waxay tiri sometimes way hurdaysaa habeenkiina maasha Allah way kacaysaa energy bay leedahay gurigay kala hagaajin dharkay dhiqi waxay tiri gabadhiis haweeney maamooyinka Soomaalida ahayd bay waxaysaa 2 in the morning 3 in the morning iyada markaa waagi baa u bariyo energy dhan bay leedahay because qofka
muurkiisu isbedbedelaya dadku waxay leeyihiin bay tiri anaa leeyahay hooyo maxay noo soo wacaysa hooyo miyay waaragtay waxay tii adigu 9 sanadood hooyo xaaladeedu maasha allah way isbedbedelaysay wiig way xanuunsanaysay wiig way ladnaanaysay sidoo kale haddana imaaraadka aada jirto odayga weli imaaraadku jooga marba 2 bilood ayay aadi jirtay garaway camal oo kale waxay tiri 9 years markay xaaladii hooyo sidaa ahayd alxamdulilah anigu markaa ninkii aanu kala tagnay waan usoo magaalo xaafad hooyo kusoo dhowaan soo degay markaa muddaa kasoo wareegtay waxay tiri 9 years xaalada hooyo ku jira markii dambe hooyo dhakhtar baa loo balamiyay dhakhtar baa la geeyay dhakhtarkii diagnosis wuxuu ku sameeyey in wuxuu u sheegay in hooyo depression qabto dawooyinka depressionka loo soo qoray depressionkana dawooyinkeeda marka inta ay kugu jiraan waad okay baa too stable buu noqonaysaa laakiin markay kaa baxdo dan haddana episode kala star garoobaya waxay tiri kabacdi hooyo waxay bilowday markii dawadu ka baxdo inay xanuunkii sidii kusoo noqdo waxay tiri adigu maalintii habeenkii dambe xaafadayda gurigayga ayaanu isu raacnay meel hadhow markaan celiy waxay ku tiri saaxiibaday gurigeeda igu daroob kale kabacdi waxaan kuri hooyo hadhowto anaa ku qaadaya isoo wac markaan diyaartay inaad rabto inaad gurigaad ma macno male bay tiri gurigii markay aaday waxay tiri hooyo imay soo wacin xaafadii bay iska joogtay waxaan isaga maleeyay bay tiri inay tagto gurigii aaday walaalkii baa isoo wacay hadhowto wuxuu igu yiri aawi hooyo waxay tiri markaasaan ku uri hooyo miyaana iman mar hooyona gurigii timaado ma wuxuu yiri hooyo waxay tiri xaafadii baan seexanayaa yaa waxay tiri waxaasna waxaanu naqaanay maa weliga iyo hooyana guri kale may seexan anaguna guri kale maanu seexan markii baan gabadh saaxiibaday wacay waxaan guri kaalay raac hooyan aadaya soo kaxaynay hooyo gurigii baan tagay waxay albaabkii markaan soo istaagay hooyo maasha allah markay luuqadeedu carabi aha carabi bay tiri markaasaa hooyo carabigii wadaad bay la hadlaysaa waxay leedahay shiiq aniga ilaahay waan jeclay I love Allah so much ilaahay aad baan u jeclahay quraankan akhriya diinta waan aqaanaa waay baan dhibkan u maraya waa maxay aan habiga ay dhow mana ciyaalkayga inaan dhibaato gaarsiiyo marka waxay tiri waan dhageystay albaabkan istaaga waan dhageystay albaabkii guriga marka soo kala hooyo way aragtay kabacdi adigu waxa gurigii bay maamadii la geeyay gurigii bay tageen gabadhi saaxiibteedna waxay tiri gaadhiga hooyo soo kaxaysay kabacdi gurigii baanu tagnay next day waxay tiri waxaan go-aan ku gaadhay inaan shaqadayda part time ka dhigto oon hooyo caawiyo marka walaashay iskuulka waxaan ku caawi hooyo maanta hooyagan guriga laga tagan hala la joogo walaalkii baa marka wuxuu yiri anaa la joogaya waxay tiri marka hooyo intaan idiin soo maamo waxaa la yidhaha hana maamo aada u qurux badan xarago badan beautiful maadara carabi ku hadasha quraanka iyo diinta aada u jecel habeen iyo maalin quraan akhriyaysa waxay tii jimcuhu wuxuu ahaata favorkeeda jimcuhu maalinta annagana waxay tii dharkana loo feerayo cabayada ugu quruxda badan khamaarka sheelada kaba high heeliska bukuurka waxay tii miles ayaa laga soo urinaya waxay maamode hooyooyinkii soomaalida qalanjo intay tahay ilaahu subxaana watacaala xarago iyo wanaag iyo diin iyo xub iyo kalgacayl uu siiyo dadka dhan la jeceliyo asxaab ciida ka badan qof kasta la sheekaysto dadka dhan la jeceliyo masaajidka markay tagto ummadda dhan asxaabteeda lagu maasha allah waxay tiri shaqadii markaa waxaan la hadlayay meeting baan lahaa intaan meeting ku jira bay tiri 15 missed call baan taleefankayga arkay waan qaracmay waxaa dhacay taleefanka haddaan fiirinayo adeerkay baa isoo wacay amal hooyo magaceeda muxuu yahay hooyo magaceeda fuulka namkeeda muxuu yahay ii sheeg waan dareef garanaya ma dareef waxaan ku adeer aniga maxaa dhacay ii sheeg hooyo fuul namkeedu wuxuu yahay waxay tahay markaasaan ku ii sheeg hooyo accident bay gashay ii sheeg hooyo waa u sheegay hana hebel baa la yidhaahdaa waxay tiri anigii oo naxadin oo saa u sheegsan baa teleefon kale soo dhacay qof kaloo qaylinaya qof nin ooyaa teleefonkii soo igu yiri marunbaa inay hooyadaa dabaqis kasoo tuurtay waxay tiri anigii naam baa noqday waa dhaqaaq karo muraar dilaac manajerkaygiiba ay soo kaxeeyay dhakhtar cisbitaalkii baa halkii baa waxay tiri waan qaracmay waa muraar dil waxaan ku yiri dadkii hooyada walaalaha iyo aabaha qof adeerada waxaan ku yiri qof u sheegi karayaan aniga ahayn male dhakhtarkii baanu tagnay dhakhtarkii wuxuu igu yidhi kusoo baxayaa qofkan patientka yaan uga u sheegaa informationkiisa waxay tiri markaasaan ku yiri aniga gabadheedii waana curadii amal waxay tiri markaas wuxuu igu yidhi qoftaada dawanooye muraar dilaac qofa adigu xaalad qof kale ma jira aabaha ama walaalka ama qof kale waxay tiri markaasaan ku yiri ii sheeg marka uu sheegay wuxuu yiri hooyo suicide bay isku samaysay dabaq bay iska soo tuurtay wayna koombi ku jirtaa ma rabtaa inaad aragtid waxay tiri waan u tagay waan ag fadhiistay waan ooyay
hooyo waa kurooyo please iska kay cafi hooyo iska kay cafi aydin iska kay cafi inaanan ku ogeyn inaad sidan ahayd yacni xaalada tan hooyo waa iska kay cafi hooyo caruurtiina boms ilmahaagii ha ka warwarin deegana bi okay bay ahaanayaan labadii wiil ugu yaryaraa xuseen iyo maxamuud de will be okay ballan baan kaa qaaday okay waayo hooyo waxay ti markaasa ilmadu ka dareertaa waxay tiri markaasaa dhakhtarka wuxuu ku yiri waad maxaad u sheegaysaa waxay tiri nii way isku haysataa laakiin way ilmeynaysa markaan la hadlay alla qeyro weyn alla ilaa qalbigoon hagaaji waxay ti markaa waxaa lagu yiri caaway dhimanaysaa naftu ka baxaysaa maca salaameeya waxay tiri aabba wacay markaan waxay aabahayay waran nabad markaasaan ku dhaab xageed joogta markaasuu igu yiri waxaan joogaa suuqa bukuur baan idiin soo gadaya hooye bukuur usoo gadaya idinka qof kanada usoo socdaanaysa waxay markaasaan ku dhaabe cisbitaalkaan joogaa ma fadhiisan kartaa markaa aaba diabetic buu qabaabay tiri aaba ma fadhiisan kartaa war waxaan rabaa inaan wax kuu sheegay markaasuu yiri maxaa dhacay aaba fadhiisa ama gurigii markaad aadidii soo wac may ii sheeg waxay tiri waa u sheeg waxaan ku dhaabe saasaa dhacday hooye dhakhtarkay joogta intees keerkan ku jirnaa bay ku jirtaa joogtaa hooyo suusay bay isku samaysay dabaq bay iska soo tuurtay 12 markaa iska soo tuurtay dabaq 12 floor ah waxaad aaba weynaa la weyna ilaa raaj mayhana mahanadaydii waxaad aaba u muraaradilaha abena waa u warwarayaa marka adeerkayba waxaan ku adeero aabe kahay wuu muraaradilaacay aabo kabacdi waxay tiri dhakhtarkii walaalahay waa u sheegay dadkii walaalaha anaa la fadhiistay waan u sheegay I cannot imagine gabadha yar hooyadeedu kooma ku jirta inay walaalaheeda oo yaryaroo ka yaranasay ugu sheegtay ilaa qalbiga u adkay kabacdi waxay tiri dhakhtarkii habeenkii bay dhimanaysaa buu nagu yidhi ilaahu subxaana watacaala maamadii 12 casho ayay nooleyd oo ku jirtay intaas cisbitaalkii waxay tiri dadka isugu yimi maalintay u yartahay 200 oo qof ayaa imanayay oo soo salaamay waxay tiri dhakhtarkii xataa way yaabeen ummadii taqaana hooyo ummadii oo waxay tiri saasaa loo oynaya loo wada fadhiya loo imanaya sidaasoo tahay haddana su-aalay bay tirina weydiinayaan leeyihin hooyo miyay waalayd hooyo miyay xanuunsatay hooyo ma ogeyd dadki waxay tiri waa la qadaala way isdishay hana waxay tiri alxamdulilah asxaabteedii dad aada u fiican oo family iyo faraankii wixiiba caawimaya ilaahay khayra siiya adu waxay tiri hooyo 12 casho hal maalin waxay tiri intay dhah kala qaaday daqiiqadaan iyo walaashay bay noo qosashay kabacdi waxay tiri 12 casho ayay ku jirtay oo aniguna 12 saacadood baan la joogay gabadha walaashay kalena 12 saacadood bay la joogaysay waa maca salaamanaha markii dib waxaan lagu yiri 24 hours ka soo socda bay naftu ka baxaysaa waxay tiri intaanu isniruway waxaanu sameynay waxay yidhahdeen waxaanu ku nirway tiri hooyada si kastaad ku badbaadin kartaan ku badbaadiya ilaahu subxaana watacaala dee haddii nafta ka qaadanaysa 12 casho maamadii nooleed oo cisbitaalka ku jirtay oo caruurtiisii maca salaamaysa waxay tiri murar dilac markay hooyo dhimay waxaa noo bilaabatay another stage kale oo ah hooyo aasidii waxay tiri kabacdi waxaanu niri aniga iyo walaashayba hooyada u maydhayna waana maya baana lagu yiri may baanu kun waxay tiri aniga hooyo walaashayba hooyo u maydhnay maydkii waxay tiri daad waxay na siisay biis alxamdulilah waan diiday bay tiri waxaan ku dhaha nool hooyaday aniga maanta haddaan ahaan la qof imay ogolaateen sadatan waxay na tusaysaa gabadhii markii hooyadii dhimatana dana waxay noqotay grief stage inay galaan inay caruurtii ilaahu subxaana watacaala laakiin dad aada u iimaan badan bua ilaahu subxaana watacaala wuxuu siiyey taqwo iyo iimaan iyo sabir alxamdulilah maanta she's doing amazing waa la guursaday wiil yar bay dhashay
dadkeena markaynu aragno qof xanuunsanaya yaynaan calaamad uga dhigin qofkan xanuunsanaya ilaahay iyo xanuunka keena xanuunkuna meel kastuu ka any other disease oo kale weeyaan dadka calaamad yaynaan uga dhigin qofkana yaynaan qodqodin maxaad qabtaa maxaa lagu yiri xaguu maraa sideed walaalka si fursad uu isagu kugu sheego si inaad anytime u baahan yahay kula hadli karayo anytime u baahan yahay maamadaas waxyaabaha ay lahayd waxaa kamid ah ay tiri inantu waxay hooyan diidaysa hadday sheegto in caruurta laga qaato in kelmadana waa wax inagana soomaalidana ina saamaysa still suicide waxaanu naqaano maaha haddii la ku royo kale haddii aad qofkii dhakhtarka u sheegato waxaynu ka baqaynaa in la yidhaahdo caruurta laga qaadanayo anfidba hooya matid taasina runtii intooda badan mana dhacdo mar way dhacdaa haddii xaaladaadu ay serious too lagu arko inaan dilmaha karin laakiin inta badan ma dhacdo marka insha allah bismillahi kara aynu isu naxariisano messagekayga waxa weeye aynu isu naxariisano number one qofka biniaadamka inaan calaamad uga dhigin xanuunka calaamad uga dhigin ilaahay ayaa qadaray ilaahay baa keenay waana xaalad kusoo food saarta maamadaas ilaahay naxariista janaa ka waraabay maamahana iyadoo hooyo dhaqan oo reer leh oo nolol fiican ku nool ayaa waxaa la keenay qurbo ay timi stresski iyo warwarkii iyo waxana waa warwar sida depressionku waa warwarkii oo kugu sii weynaaday waa waxaa la timi wadan aanay waxba ka garanayn caruur yarar bay wadataa that's how depressionku uu ku bilaabmayo markii dambena uu kugu sii xumaanaya haddaadan iska daweyn marka waxa kan waa xaalad qofka biniaadamka soo foorsaatay ama waa wax genetic oo for years ama hooyadii ka dhaxlay ama waalid ka dhaxlay laakiin mostly intooda badan ama waa xanuun ku haye ama waa xaalad kusoo food saartay marka hooyada waynu aragnaa waa xaalad soo food saartay qurbihii ay timi caruurta yaryareeda ay wadatay strugglekii stresskii all those things ba ayaa isu tegay marka maadaama inteena badan qurbo joogna meel kasta aynu joogno qofka biniaadmiga depression wuu ku dhici karayaa anuu igu dhici karaa aduu kugu dhici karaa qofkan xaalad ina soo food saartay oo isbedeshay systemkeeni oo xaaladeena oo isbedeshay waa warwarkii oo weynaaday warwarku marka hore kugu yaryahay wuu isbedelaya marka walaalayaal aynu isu naxariisano walaalaheen aynu caawino qof walaalkaada xanuunsanaya haddaad aragtid ha qodqodin iyoynaan qodqodin led aynu siino space iyagu waxay nagu siiyaan marka arrinta qisada tan tusaalaha inoo noqoto ma ogid sidoo kale qofka family memberkeena hooyada walaasha walaalka ninkaaga wax intermindkooda waxa ku jira ma ogin qofkaas uu qurux badan yahay hooyo muno hooyahana ilaahay naxariis janaa ka wada hooyo qurux badan lebisan xaragoonaysa maasha allah bay ahayd laakiin nobody knew xataa oon caruurteeda inay niyadeeda ku jirta inay isdisho inay niyadeeda inay handle garayn kara weyday xanuunkii iyo depressionkii inay handle garayn kara weyday marka ugu qofka kan always hadalka afkeena kasoo baxaya aynu ogaano sababtoo qofkani wuxuu ugu sugan yahay ma ogin qofkan biniaadmiga waxaa laga yaaba hadalka aynu leenahay inaynu jarka tuurno ma ogin qofka kale aynu isu naxariisano gabadh walaashayo dhibaataysan haddaa aragtid gabadh walaashayo dariskaaga ah oo caruur haysata haddaa aragtid way axtirada caawimaad ma u baahtay do you want to talk are you okay maxaa xaaladaadu seeta laakiin aynu siino dadka space iyo inaan haddii qofkii lena yirado wuu jiran yahay inaan calaamad uga heblahay way xanuunsanaysaa way u alatay waa kan waali iyo depression completely laba arrimood oo kala isku mid maaha waalida iyo qofkan mental health mental illness ka qaba qofku xanuunsanaya iyo waalaya isku mid maaha inuu kala saarno labada qofkii xanuunsanaya waxa lagu oranaya waalay yahay marka insha Allah bismillaah karin intii next time khayr ayaa idin rajaynaya inuu duceyno podcastga insha Allah bismillaah karin hada luqada garanaysa dhegeyso wax badan ayaad ka faa'iideysaa historia badan oo qiiro leh sheekooyin badan dad badan ayaa lafkooda ka hadlaya aad ka dhegeysan it's very inspiring weeyaan ma sha Allah marka walaalahay ka qaaliga insha Allah bismillaah karin intii next time khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh